واتهاي داوديال halkani waa Home Cable TV xarunteeda dhexe aan ku leenahay magaalada Hargeysa waxa haatan khadka si toos ah ugu jira Boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo kamid ah madaxda dhaqanka ee Soomaaliland Boqor may maqlaysaa ku soo dhawow Home Cable TV aad iyo aad baad sagal u mahadsantahay adeero ku maqlaya Boqor maalmihii la soo dhaafay warbaahinta waxa lagu arkayay xildhibaan Mustafa oo ka tirsan golaha wakiilada ee cusub ee Soomaaliland kaasi oo xisbiga talada dalka Soomaaliland haya uga soo baxay magaalada Caynaba ee gobolka Sool oo sheegay in lagu afduubay dalka Itoobiya arrinta maxaad kala socotaan horta waa arrinka aad iyo aad baan uga xunnahay waana arrin taabanaya nabadgelyada iyo dastuurka Soomaaliland iyo wada noolaanshaha Soomaaliland arrin dhibaato ku aaweyn weeye waxaan adeerka warhaynaa arrinkaas ninka xildhibaanka Mustafa markuu halkaa tegay waxa weeyaan waxa lala hadlay dowladda Itoobiya saadogtay wixii amargaysan lagu sheego ama dhibaato lagu sheego in amniga laga wada shaqeeyaa dowladda Itoobiya ma dhaleecaynayno ma leeyahay waa gardaran tahay waana ugu mahadnaqaynaa intay markay hubsatay inuu xildhibaan xasaanad leeyahay inay faraha ka qaadaan in gumad badan laga sameeyay iyo intii gurmatay xildhibaanka anagu waanu ka warhaynaa arrinka waxa kale oo la sameeyay nimankii u yimi sirdoonka ahaa marin halaabis way bay sameeyeen wasiirka dakhliga ayaa nala soo xidhay arrinkaasina wuxuu ahaa iska horkeen waxaan ogaanay Maxamed Kaahin iyo wasaaradda dakhliga midayaan xog ku ahayn sirdoonka oo madax ka yahay Muuse Biixi iyo iyankiisu ayaa mu'amarada iyo wajalka laba leeyahay ka shaqeeyay waanu ognahay arrin ugubna maaha madaxweyne Muuse Biixi waa ninkii u horeeyay ee madaxweynaha ee xira xildhibaan xasaanad leh وان قيدنا لوغو سو غبندha kolba u horeeyay waa madaxweynuhu u horeeyay ee xila gudoomiye xisbiga xoghaye xisbi guud oo xasaanad iyo ixtiraam leh xida cid wax ka weydiin cid ka hadlin marka arrin jiro aanu ognahay weeye cid aanu kala xisaabtamayno waan Muuse Biixi ahayna ma jirto anaga la soo baxnay xildhibaanada xisbiga doonana ka soo baxeen beela la soo baxay beela kharash حزبي وحشيغان كرا وكتوجر غرين كرا hadii aan laba leeyahay aniga ii joogtee waa idabaro way raga tartamaya labada gudoomiye oo tartamayaan kii ii soo baxaba waa maqado laakiin arrinka aan qaadan laanahay arrinkaas waxa weeyaan jafka lagula kacay beer ahaan xasaanadii beertii dooratay iyo ummadii dooratay iyo qarankii intaba waxa weeyaan arrin aanu ka harayno maaha laakiin boqor wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in arrintaasi ay beeninayaan oo aanay waxba ka jirin idinku maxaad ku cadeynaysaan in xildhibaanka lagu xiray dalka Itoobiya maadaama uu haatana Soomaaliland ku sugan yahay waxay weeyaan in la afduubaa la isku daray waa cadeynayna cadeyn buuxdaan u haynaa laakiin waxa weeyaan arrinku inuu markii soo horeba waxa wax ka weyn baa jira hadda la doonayaa in la xiro Hargeysa lagu xiro imika isagoo xasaanad leh maatii maxkamaddu magacawday ee dhaarisay ee ku dhawaaqday xalinta la dhaarinba xildhibaan noqday maanta dhaar kuma noqon xildhibaan xasaanad leh wuxuu noqday markii maxkamadda sare ku dhawaaqday boqor ilaa hadda ma jiraan warar sheegaya in waaran loo geeyay xildhibaankaas ama la xirayo idinka ayaa idin xaqiijiyay arrinta xarigeed ka hadlaysid waan ognahay xildhibaanadii hore iyo raggii hore la xidhay wax ku soo gaarin laakiin anagu waxaan leenahay Muuse Biixi arkeebaan leenahay xid Mustafa xid baan leenahay waxa ka dhacay Soomaaliland saacada laga bilaabo hadduu xildhibaanka far la saaro uma madaxweyne inuu yahay xasaanad dastuurka xasaanad siyay waxa saacada laga bilaabo uu xildhibaanka xasaanadiisa ku gudbo meel kasta annaga iyo wixii xilfinala iyo wixii isbahaysiga naga tala qaata ya waxaanu kala gareynaa Muuse Biixi inuu dalka madaxweyne ka haray waayo dastuurkii isaga faraha ku qaatay waxaanu leenahay haddii aad ku dhacdo xildhibaan leenahay xildhibaan Mustafa boqor sida aynu ognahay xukuumaddu iyada amniga qaranka uga mas'uula haddii Mustafa ay u aragto inuu ku kacay tallaabo amniga qaranka waxyeeleynaysa oo ay xabsiga u taxaabtaba maxaa idinka idin soo dhaxgelinaya waxaan soo dhaxgelinaya xildhibaanku waa xildhibaan qaran oo xasaanad weeye marka hore ma xiri karo wada uu soo mari karaana ma jirto aniga ii coode oo dastuurkii faraha lagu qaataan ku xiraya oo dambi ugu sameynaya xarigu way ka weyntay waa dil weeye qolada xisbiyada maanta hadlaya xataa waxaan aaminsanahay hadalkooda hadal aan sidaa ka rabay weliba siiba gudoomiye ciro sidaa ka rabay inaan u hadlin maalin walbana taas oo kale waxa weeyaan iyago 12 xildhibaan ama 13 xildhibaan laga haysto in hal xildhibaan oo ka tagay la yiraahdo hadii aan la leeyahay qasab baanu
baan ku tahay waayahay waxaad sheegtay hadeer hadalkaaga aad ku dartay in gudoomiye Cirro hadalkii uu maanta jeediyay uu yahay kii aanad uga baahnayn bal sideed jeclaan lahayd Cirro maanta inuu arrintaas uga hadlo rayda wada xogayihiisii guud baa la xiray intaasoo jeer bay mucaaradku dul qaateen maanta waa jaaniskii u dambeeyey haddii laba leeyahay isku tijaabinayeen in doorasho xaq iyo xalaal dalka ka dhacdo maanta inuu iyadoo taasi dhacday oo xildhibaanadii haddii laba leeyahay inta 13 laga kaxaysay uu yiri cidii waxaad xodanaysaa xodxodata oo dan ka gelin halkii xildhibaan uu soo galay in xoog iyo toojar iyo wajalaad iyo dil la isugu daro in maanta waxaanu eegaynaa inuu kiciyo dalka waxaanu eegaynaa haddii laba leeyahay arrinkaa inuu ka dagaalamo si dhabo uga dagaalamo boqor Mustafa ma waxaa jirta warqad ama waaran u tagay oo uu sheegay in la xirayo waddankan caruur baa ku xeraysan heegan la yiraahdo ku hareeraysan warkiisu suuq u yaala dad wax qarin kara ma aha wadadaan khibrad lahayn warkaasi si rasmi noo soo gaaray ninkaan warankiisi la wado waa tahay kaasi waxa uu ahaa boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo ka tirsan madaxda dhaqanka ee Soomaaliland oo si gaar ah u la hadlayay telefishinka Cable TV boqor aad baad u mahadsan tahay waanu kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga